Belgaarka Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo xubnaha wafdiga ah ee warkacaya ayaa waxa garoonka diyaaradaha ee Dancadda Airport ee magaalada Muqdisho si diiran ugu soo dhaweeyay xubno ka tirsan golayaasha dawladda ku meelgaarka ee Soomaaliya oo warkacayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Dr. Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake iyadoo halkaasina uu salaan sharaf kaga qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada dawladda ku meelgaarka ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM madaxweynaha wafdigiisa ka mid ah mudane Axmed Jaamac Jangeli oo ah wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka ee dawladda ku meelgaarka ayaa inta kadib waxa lagu soo galbiyay gawaarida filan ee ciidamada AMISOM iyadoo inta badan la xiray wadooyinka soo gala airportka iyo inta u dhaxaysa madaxtooyada waxaana intaas kadib uu soo gaaray aqalka madaxtooyada Soomaaliya iyadoo halkaasina uu kula kulmay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe waxaana halkaasi warbixino kooban kaga siiyay xaaladihii ugu dambeeyay dalka shirkii ay ku yeesheen magaalada Sirta ee dalka Liibiya madaxda Afrika ayaa inta badan waxa lagu mashquulay arrimaha madaxweynaha Liibiya iyo in la mideeyo Afrika iyadoo haddana madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo kala soo guriyay noqday waxoogaa guulaha sida in la taageero dawladdiisa iyo in ciidamada AMISOM oo hadda ku kooban ilaalinta airportka dekada iyo xarumaha kale ee dawladda loo fasaxo inay ka qayb qaataan dagaalada haddii la soo hujumo iyo weliba qodobo kale oo ku saabsan kordhinta ciidamada AMISOM oo haatan tiradooda ay tahay iyo in cunaqabatayn la saaro dawladda Eritrea iyo weliba qodobo kale oo markaa guul ah dawladda ku meelgaarka waxaana haddana la ogeyn inay ballanqaadidaasi la fulin doono waqtiyada dhow maadaama dawladdu ay dagaallo naflacaariya kula jirto xoogaga hubaysan ay ka soo horjeeda dhawaan ayay ahayd markii uu amiirka al-shabaab Abu Zubayr uu qalabka warbaahinta u soo mariyay iyadoo madaxweyne Sheekh Shariif uu dalka ka maqan yahay madaxda dawladda iyo ciidamadeeduba inay isku soo dhiibaan muddo 5 maalmood arrinta waxaan ka leenahay ugu horreyn wixii ciidan ee sabta cadowga ku jira waxaan ugu baaqaynaa inay toobad keenaan hubkana ay mujaahidiinta ku wareejiyaan danahoodana raacdaan lagamana ogolaan doono inay hub haystaan ama ciidan sii ahaadaan waxay haystaan fursad yar oo 5 beri ah inay kaga baxaan safka cadowga dhanka kale madaxda sarsare ee dowladda ridada waxaa la saari doonaa maxkamad islaami ah waxaana lagu qaadi doonaa dembiyada ay ummadda ka galeen fariintaas haatan waxay ku egtahay saacadaha soo socda lamana oga waxa uu madaxweyne Sheekh Shariif ka oran doono marka uu nasad dabadeed oo la filayo inuu saxaafadda la hadlo ugana warbixiyo shirkii uu ka soo qayb galay iyo socdaaladii kala duwan oo madaxweynuhu ku tagay wadamada Djibouti, Ethiopia iyo Uganda kuwaas oo u muuqday kuwa uu ku baadagoobayay taageero military Cabdiqaadir Maxamed Faarax Dulyar TV-ga Universal Muqdisho.